qisadani waa dhab waxayna ka dhacday koonfurta dalka Turkiga waana qiso wax u dhigma aad ku arkayso un kaliya filimaanta iyo riwaayadaha Jacayl qisadan oo dhaxmarta Mustafa iyo Doondo ayaa ku dhamaatay 77 sanadood kadib farxad Mustafa waxa uu jacaylku ku dhacay markiisii ugu horeysay isagoo 15 sano jir ah gabarta uu jeclaa ee Doondana waxa ay ka weyneyd 3 sanadood un kaliya Mustafa ayaa aabihii u sheegay inuu doonayo guur gabarta Doonda ahna uu soo arkooday laakiin waa laga diiday arinkaas ayaana ku keenay Mustafa niyad jab xoogan waxa uu ku biiray ciidanka Mustafa oo arinka ka sheekeynaya ayaa yiri aad baan u murugooday noloshii oo dhan ayaa ii qaraaraatay kadib ciidanka ayaan isaga biiray tababarkii ciidan ayaa u soo dhamaaday Mustafa 4 sano kadib tuuladii ayuuna dib ugu soo laabtay wuxuu la kulmay arin daawiciisii sii xoojisay dhibaatadiina aad ugu sii fogeysay Doondo ayaa la guursaday waxayna dhashay ilmo yar wuxuuna xamili kari waayay inuu tuuladii sii joogo isagoo u guuray magaalo kale si uu noloshiisa halka ugu sii wado waxa uu dhistay reer cusub waxa suurtagal ahayd inay sheekadu halka ku dhamaato maadaama sheekooyinka jacaylku ay inta badan guuldareystaan kuna dhamaadaan si aan wanaagsanayn laakiin Doondo iyo Mustafa nasiibka ayaa u hiiliyay oo nasiibka ayaa tusiyay wax kale oo aanay filayn Mustafa xaaskii uu guursaday way ka geeriyootay caruurtiisana way weynaadeen waxauna isaguna u soo wareegay guriga waayeelada lagu xanaaneeyo maalmihiisii ugu horeeyay deegaankiisa cusub ayaa mid kamida waayeeladii goobta ku jiray aad ugu soo dhawaatay markaas bay ku tiri Mustafa maxaad goobta ka qabanaysaa Mustafa ayaa waxa uu yiri waan fiiriyay waxaana ku iri anigu adiga kuma garanayo isku keysheeg waxayna ugu jawaabtay waxaan ahay Doondo sideed ii garan weyday waa tabintii shaacir haddaba daawadayaal si aad uga bogataan sheekooyin iyo qisooyin dhab ah oo quseeya waayaha nolosha ku xirnaaw oo subscribe saar page-kan cusub ee aayaha nolosha TV inala wadaag oo inoo soo dir maalmaha murugada iyo mahadada kugu beeray ee aan ka go'in xasuustaada adigoo fariin inoo soo diraya meeshana waxa ka furmay gal cusub ee sheekadii Mustafa iyo Doondo labadan waayeel aadka isku jeclaa waxayna isdhaafsadeen sheekooyin iyo xasuusahoodii 77 sano ka hor iyagoo isku dayay in midba kan kale culayska ka dajiyo kadibna waxay go'aan ku qaateen inay muddo dheer kadib isguursadaan laakiin markaan labaad go'aankii ay gaareen waxa ka hor yimid oo diiday caruurtii ay dhaleen oo ka soo horjeestay jacaylku dhib badana waxay isku dayeen inay isla baxsadaan Doonto waxay aad uga xumaatay in caruurteeda ay guurka ka soo horjeestaan aad bay u oyday Mustafa ayay ku tiri meeshaan inaga kaxee Mustafa waxa uu u qaadan waayay murugada ka muuqata Doondo waxaanu isku dayay inuu la cararo habeen guriga waayeeladana uu ka cararo laakiin dadkii goobta maamulayay ayaa ogaaday oo dib u soo celiyay maamulkii goobta ay wada joogeen ayaa Mustafa u yeeray isla markaana u sheegay qaladka uu ku jiro iyo inay khaldaneyd falka uu ku kacay waxa uu ugu jawaabay haddaan la ii guurin Doondo waan la baxsanayaa wada kale iima furna odayga jacaylkiisa u dagaalamaya ayaa waxa uu qorsheenayay inuu caqabad kasta ka dhex saaro isaga iyo jacaylkiisa arinkii ayaa la gaarsiiyay duqa magaaladii ay ku noolaayeen oo lagu magacaabo Hussein Aydin qisada ayaana markii loogu sheekeeyay aad u taabatay qalbigiisa waxa uu go'aansaday inuu caruurta Mustafa iyo Doondo ku qanciyo guurka labadooda inay ogolaadaan jacaylkana aanay cadow ku noqon ugu dambayna muddo dheer kadib labadii waayeel isjeclaa way isguursadeen waxayna degeen guri gooni ah kadib markii ay da'doodu kor u dhaaftay 9 sano Mustafa oo dareenkiisa qarsan waayay ayaa yiri aad baan ugu faraxsanahay alla ayaa mahad iska leh ugu dambeyn waxaan helay jacaylkaygii allaana weydiisanayaa in cid kasta oo isjecel uu u fududeeyo 80 jir ba dhaafaane Doondo si wanaagsan uma hadli karto iyadu daal badan oo ka muuqda darteed laakiin
dhoola caddaynta aan wejigeeda ka dhammaanayn ayaa kuu muujinaysa farxadda ay ku naaloonayso taas oo ay sugaysa muddo aad u dheer.